هلو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمانتي وايدين سلامي إلهي waxaan kaga rajaynayaa cimri dheer cibaado dhameystiran caafimaad dhan meel kasta joogtaan maalinta dunida ee jacaylka 14 February bal adiga ma u dabaaldegtaa ma se taqaanaa sababta loogu dabaaldego maxaase adiga u dabaaldegtaa maalintaada qaaska ku ah ama aad guursatay ama qof aad jeceshahay la kulantay ama meherkiina dhacay fadlan ku soo dhawow channelkaas anfac share taabo adigoo mahadsan like taabo subscribe na taabo mahadsanid horta waxaa muhiim adigu ah inaad samaysatid maalin adiga qaas ku ah oo qiimo ku leh oo ka duwan maalmaha kaleeto waayo adiga ilmaanahaaga qaas ayaa isku tihiin waayo ilaahay isku kiin doortay aabahaaga ilmahaaga aabahood ama ilmahaaga hooyadood so marka muhiim weeye hadii ma aragtay maalin adiga kaaga duu maalmahaas intii hal maalin u sugi lahayd sanadkii aad samaysan kartid waqti walba adiga awoodid waqtiga doonta ha noqotee waqtigaas oo aad adiga kaliyeysan kartid oo ma aragtay la wadaagi karto qofka ma aragtay fakarkaaga dareenkaaga rabitaankaaga iyo horumarkaaga qofkaas markasta inaad u cadeysid in ma aragtay wali ay isku same page taagan tihiin inaad waxaa muhiim u ah dadka isqabo oo kale ama dadka rabaan inay isguursadaan inay wax isfahansiin karaan ismaqli karaan isdhageysan karaan hadduu qofka kale fahmin qofka kale su'aalo weydiin karo muhiim waxaa kaloo ah in maalinta adinka qaaskeediin ah sida maalinta meherkiina ama maalinta doonashadiina ama maalinta guurkiina qofka kale wuxuu jecel yahay ama u sameeyo ama u soo gado qofkaaga lamaanahayo hadduu kaa baqayo ama kaa maaragtay niyad jabsan yahay inaad maaragtay aad niyadda u dhisi kartid inaad raali gelin kartid dadku way isku dhacaan wax dhib weyn maaha noloshay ka mid tahay qofka asagoo ku ogeyn ama ku weydiisanin waxyaabo uu jecel yahay inaad u soo iibisid ama waxyaabo ay jeceshahay sida ubaxa oo kaleeto ubaxa waxyaabo badan oo faa'iido u leeyahay la dhahaa sida xagga caafimaadka oo kaleeto maxay tahay quruxda dareenka iyo waxyaabo kale oo badan markasta waa muhiim in ma aragtay qof kale u dhiibin arintaada qof kaleeto inuu hogaamiyo qofkaas oo aad ogeyn inuu qof aad ku kalsoon tahay uusan ahayn balse waa muhiim inaad heshid qof aad ku kalsoon tahay oo wax kasta kala tashan kartid waa muhiim inaad heshid waqtiyo qaas idin ah adinka sababtoo ah taas waxay siinaysaa fursad inaad isku fahantiin inaad wax iska dhaadhicin kartiin inaad israali gelin kartiin inaad hore u socon kartiin in ma aragtay aad ilaahay isxasuusin kartiin inaa ma aragtay waxa idinka dhaxeeyo oo caruurtiina iyo waxyaabaha kaleeto inaad ka wada hadashiin waxaa kale aad muhiim u ah in ma aragtay mar walba qof kasta inuu qofka kale ixtiraam siiyo sida inay muhiim u tahay waxa lamaan waqtiga aad siin kartid inuu qofkan kaligiis ahaado mararka qaar iyaalkina la qaadatiin labadiina waa muhiim mararka qaar in adinka isla qaadatiin waa muhiim mararka qaarne qof kasta qof kale asxaabtiisa inuu la qaato waa muhiim mararka qaarna qof kasta kaligiis inuu waqti qaato waa muhiim marka maxay muhiim u yihiin waxyaabahan oo dhan because qof kasta qofka kale uu ka duwan yahay qofka kale uu ka maaragtay rabitaan duwan yahay waxyaabo badan lagu kala duwan yahay so qofka markii aad fursad u siisid qofkaas ama noqon karo maaragtay odagaaga ama xaajiyadaada waxaa fursad u siinaysaa qofkaas in uu maaragtay reflection sameeyo waxyaabaha ka hadashay waxyaabaha rabtiin waxa maaragtay wixii kale oo dhan inuu kaligiis si degan oo tartiib maskaxda u rajiis gareeyo so markii macalinka cashir kuu soo dhigo oo kaleeto waa inaad muraajaca samaysid oo kale saas oo kaleeto amal markaa kaligaa joogtid oo waqti kali ah isku heshid waxyaabahaas kula soo xasuusanaysa marka qaar qofka maalmaha muhiimka idin ah iloobin because qofku uu ka xumaan karaa xusdii karaa qofkan ma wadaneynayo ma aragtay guurkeena ama nolosheena ama ma aragtay maalmaha muhiimka ah oo kaleeto qofka oo uu qiimeynayo wax weyn la tahay adaa og maybe maalmaha I don't know qof kasta maalin si gooni u qiimeeyaa adiga og lamaanahaaga la hadal maalmahay jecel yihiin anda maalmahaas oo kale meel weyn ha kugu qornaato mararka qaar waxyaabaha qaar inaa maxay si gooni ah oo ama ma aragtay uga wada hadli kartiin oo uga doodi kartiin dagaalka iyo dooda labay kala yihiin qofka wax waa ka doodi kartiin laakiin ina istagaashin muhiim ahaan balse hadaa qofku wax ka doodin macnaheedu waxa qof kasto
maskaxdiisa iyo wadnihiisa waxa ku jiro iyo qofka kale u gudbinayaa. So markii la is dhageysto waxaa dhici karo in la isfahmo ama la iska dhaadhiciyo ama xataa hadaa meel iskugu imaan weysaan ina qofka kale dulqaad u yeesho. marka muhiim way marka inaad saas sameysid waxa ku sameyn kartaa taas inaad heshid meel ma aragtay labadiina ama caruur ama dad kale joogin. waxa kale ku sameyn kartaa taas ina qofka kale fursad siiyo is dhageysataan. laakiin hadaa labadiina sawirkaan oo kale hadaa is murmaysiin isku mar hadlaysiin ma is maqlaysiin ma is fahmaysiin shaydaanka roodi ka faa'iideysanaya muran iyo dood iyo dagaalka ayaa sii kacayo. so sidaas darteed qof mar hadlo qof mar kale ha dhageysto. mar walbo naftaada qiimeey, mar walbo naftaada jeclo, mar walbo ha ogolaani naftaada bahdilaad iyo ma aragtay waxaad u qalmin. ogow qof qiimo laha tahay waayo ilaahay wuxuu dhahay bini'aadanka waxa ugu qiimaha badan ee abuuray weeyeen. waa mahadsan tahay dhageysiga dhageysatay iyo daawashada daawatay. insha Allah mar dambe is arki doonaa. waa inoo mar kale. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. daawasho wacan fadlan dadka la sii wadaag adigoo aad iyo aad u mahadsan.